بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وحلقتني يفرقني صدحي طبناد حلقات كأنه كجور رميني بشهر رمضان أحكام تيدا آداب تيدا أعماش صالحات ككل حجرته. waxaynu xalaqadan ku soo qaadanaynaa qofka muslimka ah bisha ramadaan acmaasha khayrka badan oo ka faa'iideysanaya waxa kamid ah sadaqada iyo in wax la baxo. bishani waa bishii ay sadaqada ajarka dheeraadka ay lahayd, ayadoo sadaqadu mar walba ajar badan leh oo nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam ittaqun naara walaw bishiqqi tamra, war naarta iskaga dhiga oo naarta isaga hormariya timir jeexeedna ha noqotee. ayadoo nabigu uu yiri kaleey salaatu wasalaam as-sadaqatu tudfi'u qadab ar-rabbi kama yudfi'u an-naaru kama yudfi'u al-maa'u an-naara. wuxuu nabigu kaleey salaatu wasalaam sadaqadu waxay baqtiisaa cadhada ilaahay subxaanahu wa tacaala ay meesha ka saartaa, sida biyaha haddii la soo qaado dab lagu shubo dabkaasi uu u baqtiyo u damayo ayay sadaqadu cadhada ilaahay subxaanahu wa tacaala u damisaa. macnaha ilaahay baa kaga raali noqdo qofka oo cadhadii ilaahay baa raali ahaansho loogu bedelayaa. haddii ay sidaa tahay si guud sadaqadu haddana marka bisha ramadaan lagu jiro in la badiyay waa sunnadii nabiga kaleey salaatu wasalaam. saxaabadu waxay inoo wariyeen rasuulka ilaahay wuxuu ahaa kaleey salaatu wasalaam ajwad annaas, dadka ka ugu deeqsisan, wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaan, waqtigu ugu sii deeqsinimada badan yahay oo ugu wax bixinta badan yahayna waxay ahayd bisha ramadaan. marka jibriil la kulmayo ee quraanka la akhrinayo la mudaarasaynayo ayuu nabigu kaleey salaatu wasalaam ugu sii deeqsinimo badnaa. fara rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ajwadu bil khayri min ar-riih al-mursala, ay saxaabadu yiraahdeen rasuulka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ahaa mid uga dheerayn badan khayrkiyo wanaaga iyo sadaqada wax lala baxo dabaylaha soconaya uu uga dheerayn badnaa nabigu kaleey salaatu wasalaam. marka in laga faa'iideysto bishaan oo qof sooman la afuriyo, oo mid aan waxba haysan wax la taro, oo mid ciid u baahan laga farxiyo, oo mid maaragtay dan yar ah la taageero, oo ayada oo sixir barar iyo xaaladuhu iska adag yihiin waqtiga kan ayaa haddana marka ramadaantu soo gasho laga yaabaa inay duruufuhu sii adkaadaan. marka bulshada muslimka inay iska warhayso oo la isxambaarto oo wax la istaro oo la isu gurmado ayaynu dardaarmaynaa, oo ilaahay lagu dhawaado subxaanahu wa tacaala wax taridda iyo quuridda loo quurayo dadka masaakiinta iyo fuqarada wax loo quurayo ayaynu dardaarmaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.